dhammaan intii hadalka igaga horeysay dhammaan intii juhdiga ku bixisay soo qabanqaabinta xafladan dhammaan intii igu dhiirigelisay imaatinka magaalada Minneapolis dhammaan asxaabtayda dadkii hore ehelkayga dhammaan asxaabta cusub oo caawa u timid inay iga dhageystaan afkaartayda aan rabo waddankan inaan ku hogaamiyo fanaaniinta odayaasha hadalka igaga horeeyay ee halkan ka hadlay walibana taariikhdayda ka hadlay asxaabta sportska horena aan isu naqaanay haddana aan aad u jeclahay inaan xiriir intaa ka dheer sii lahaano sababtoo ah waxaan la socdaa inay aad iskugu xiran yihiin dunida meel kastoo ay joogaanba kulligiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khudbadayda intaanan gelin waxaan jeclaa dhowr wax oo halkan laga sheegay ama ha ahaataan dardaarankii heesaha fanaaniinta ama taariikhda laga sheekeeyay waxaan rabaa isagana inaan si fiican u salaamo Councilman Cabdi Warsame oo runtii hadda ka horna soo dhaweeyay haddana insha Allah aan rabo inuu noqdo qof aan wax ka baranno haddaan nahay dadka Soomaaliya ka shaqeeya hadalladiisii uu halkan kaga hadlay iyo dardaarankii intaba waa noodgaraynay tibdara ima suuroobaysa inaan mid kastaba gooni uga hadlo sababtoo ah waxaan rabaa inaan waqti yar aan ku daboolo khudbadda aan soo diyaariyay oo soo qoray marka waxaan leeyahay insha Allah magaalada waxaan joogaa ilaa talaadada waxaan rajaynayaa inaan mid aan soo aragno oo shaah wada cabno oo ka sheekaysano arrimahaas oo dhan walaalayaal waxaan aaminsanahay in la joogo waqtigaan u wada istaagi lahayn Soomaaliya oo aan ka dhigi lahayn waddankeena mid nabadgelyo iyo hodan u ah qof walba oo Soomaali ah waxaan bil ka hor ku dhawaaqay kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho mashraxnimadayda xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku dhawaaqada kadib waxaan safar ku maray gobollo iyo degmooyin iyo xitaa tuulooyin dalkeena baaxadda weyn ee quruxda badan ka mid ah waxaan safaradaas u galay walina u sii wadi doonaa insha Allah si aan wax uga barto dadkeena Soomaaliyeed ee adkaysiga badan leh uguna gudbiyo afkaartayda ku aadan siduu isbedel ku imaan lahaa waxaan caawa idin hortaaganahay sidoo kale inaan afkaartaas idin la wadaago taageeradiinana aan helo marka horese aan idin weydiiyay isbedel iyo horumar siyaasadeed oo Soomaaliya ka dhaca ma loo baahan yahay ma loo baahan yahay dawlad Soomaaliyeed oo xooggan oo daryeeli karta dalkeeda iyo dadkeeda okay haddaba si wada jir ah aan ugu hiilano Soomaaliya si wada jir ah aan u gaarno guusha aan gacanteena ku keeni karno nabadgelyo iyo horumarna aan ku gaarno heshiis dhab ah iyo dawlad daacad ah caadil ah oo ka fog musuqmaasuqa walaalayaal jidka aan ku gaari karno taas waa labo koow dib u heshiisiin qaran labo dawlad daacad ah dib u heshiisiin qaran inkastoo ay jireen isku dayaal badan oo dib u heshiisiineed haddana mar walba waxaa xoog la saarayay sidii lagu soo dhisi lahaa dawlad Soomaaliyeed hadda waxaynu u baahanahay inaan dadkeena kalsooni ka dhex abuurno
taasoo ah aasaaska isku xirnaanta bulshadeenna iyo midnimada Soomaaliyeed. Shakhsiyan markaan isku kalsoonnahay annagoo dhan kalsooni isku qabno ayaan soo celin karnaa midnimada Soomaaliyeed. Markaan midnimada Soomaaliyeed haysanno waxaan difaaci karnaa dadkeenna iyo dalkeenna, gaari karnaana horumar dhaqaale. waxaa kaloo iyadana loo baahan yahay inaan garanno in aysan jirin cid kale oo ciidamadeena noo midayn karta, noo dhisi karta, oo mushaar noo siin karta. Soomaali waxay ku mahmaadaa biyo sacbadaada looga dhargaa. Dadyooga kale waana caawin karaan ilaa xad. waase inaynu helnaa rabitaanka siyaasadeed, waa inaan leenahay rabitaanka siyaasadeed ee aan ku dhisi karno ciidamadeena qaran oo qabiil walba gacan uu ka geysan karo, Soomaali walbana dareemi karo in ciidamadu u taagan yihiin difaacooda. Markaynu dhisano ciidan qaran waxaa loo baahan yahay inaynu adkayno tayadooda si ay muddo kadib xilka amniga waddanka ugala wareegaan ciidamada ajnabiga, taasoo macnaheedu uusan ahayn oo kaliya tababaro iyo qalab wanaagsan, laakiin loo baahan yahay in lagu baraarujiyo wadaniyad iyo inaynu adkayno ballanqaadka daryeelka askariga dhaawacmo. Markay jirto is-aaminaad iyo midnimo, waxaan samayn karnaa nidaam canshuureed oo gobolladoo dhan ay kaga qayb qaataan oo aan ciidamadeena qaranka ku bixinno mushaarkooda. Laakiin marka hore waa inaan baabi'inaa musuqmaasuqa iyo maamul xumada. Waa inaan soo noqon doonaa qaabka aan u bixinayno mushaarka. Qodobka labaad waa dowlad daacad. Inaynu la xisaabtano dowladdeena heer federaal ilaa iyo heerka dowladaha hoose waa tiirka labaad ee aragtideena Soomaaliya. Sideen ula dagaalanaa musuqmaasuqa una kordhinaa isla xisaabtanka? Waxay ka bilaabataa meesha ugu sarreysa. Waxaan ballan qaadayaa ka madaxweyne ahaan in aniga iyo inta ila shaqeysa aanan u dulqaadan doonin musuqmaasuq. waxaa jira isla xisaabtan la'aan badan oo qaybaha dowladda oo dhan ah, waana inay taasi isbedeshaa. Hay-adaha dowladda waxay u adeegaan oo la xisaabtama shacbiga. Aragtideena Soomaaliyana waxay xoojin doontaa sidii ay muwaadiniintu ula xisaabtami lahaayeen hay-adaha dowladda. Dowladda cad ahi waxay lagama maarmaan u tahay dib u dhiska Soomaaliya. Si aynu u joojinno musuqmaasuqa, waxaan ku bixinaynaa mushaharka askari walba iyo shaqaalaha dowladda annagoo u furi doona xisaab bangi. Halkaasna qof kasta mushaharkiisa ugu shubi doona, taasoo joojin doonta in la leexsado lacagta mushaharka ama madaxdu ka musuqmaasuqaan ama la yiraahdo waxaa lagu qabtay howlo kale. waxaan kaloo aasaasi doonaa guddiga madaxa bannaan ee ka hortagga musuqmaasuqa oo awood u lahaan doona inay u kuurgalaan dhammaan heerarka kala duwan ee dowladda, ayna sharciga la tiigsadaan iyo weliba in xilka laga qaado ciddii ku dhaqanta musuqmaasuq iyo inay soo celiyaan lacagihii sharci darrada lagu qaatay. laakiin kaligay ma samayn karo. Muwaadin kasta waa inuu igala qayb qaataa oo yiraahdaa ogolaan mayno musuqmaasuq, iyagoo la shaqayn doona kuwa daacadda ah, isla markaana ka soo warbixin doona kuwa musuqmaasuqa ah, soona gaarsiin doona guddiga ka hortagga musuqmaasuqa. Joojinta musuqmaasuqa waxay qaadan doontaa muddo dheer, waxayna u baahan tahay innagoo dhan oo isku duuban inaan ka hortagno. Markaan haysanno aasaas siyaasadeed oo xoog leh, kaasoo ku yimid is-aaminaad iyo midnimo Soomaaliyeed iyo dowlad daacad ah iyo ciidamo qaran oo midaysan,
waxaan wax ka qaban karnaa wajiyada kale ee aan waddankeena hore ugu marinayno. waxaa moodaa qaybo ka mid ah khudbadayda inayba jawaab u yihiin hadallada halkan laga soo jeediyey. waxaan ku faraxsanahay councilman Cabdi Warsame dardaarankiisii inuu ka mid yahay khudbadayda. kow, qiyamka dimuqraadiga ama waxa af Ingiriiska lagu yiraahdo democratic values waa inaynu ammaanaa oo qiimeynaa sida dimuqraadiyadda uga mid tahay dhaqankeena Soomaaliyeed. dhaqanka Soomaaliyeed ma ogolaanayo in la caburiyo aragtida iyo codka shacbiga. waxaa loo baahan yahay oo kaliya inaynu taas waafajino dib u dhisidda dowladnimo dimuqraadi ah. 4 sano ka hor waxaan u xisaabnaa hawsha wacyigelinta dadweynaha ee dastuurka. waxaan soo saarnay filmaan iyo masraxiyado raadiyaha ah oo aan ku sharaxaynay dastuurka iyo qabi qoraalka dastuurka. kadibna waxaan ka sii daynay raadiyaasha iyo telefishinada. habeenada ka mid ah anigoo shaqada ka soo rawaxay ayaan raadiyaha waxaan ka maqlay dood socod. dadka soo wacay raadiyaha waxay ka hadlayeen dastuurka iyagoo tiigsanaya qodob uga hadlaya oo qof walba si saraaxad iyo maamuus leh uu u dhiibanayay aragtidiisa ama fikradihiisa. waxay isku raacsan yihiin iyo waxay ku kala duwan yihiinba. ma jirin qabiilaysi, ma jirin gobolaysi, xitaa fikradaha umay kala qaybsaneen rag iyo haween. dhagaysiga barnaamijkaas wuxuu ahaa mid igu dhaliyay farxad iyo inay suurtagal tahay in dadka loo horseedi karo jiho toosan oo waxtar leh. waxaa hubaal ah inaynu u baahannahay inaynu xoog saarno horumarinta dimuqraadiyadda. doorasho toos ah oo qof iyo cod ah waxay u ogolaanaysaa Soomaalida oo dhan inay la xisaabtami karaan mas'uuliyintooda, kana codayn karaan kuwa musuqmaasuqa ah ama ku guuleysan waaya inay danta shacabka ka hormariyaan tooda gaarka ah. mas'uuliyiinta oo dhan waa inay u hoggaansamaan rabitaanka shacabka. taasna sida kaliya oo aan ku samayn karno waa inaan ogolaano in muwaadin kasta uu codayn karo. 2, ganacsiga iyo shirkadaha khaaska ah. waxaan ku kalsoonahay dadka Soomaaliyeed. waxaan nahay dabiiciyan dad ganacsato ah. Soomaalidu waa dad shaqaysta. waxay ku leeyihiin ganacsiyahana qaaday Afrika iyo dunida oo dhan. hadda marka waa inaynu waddankeena ganacsiga u furnaa. maanta Soomaalidu waxay ku nool yihiin dunida oo dhan. waxay barteen xirfado, waxayna ku guuleysteen ganacsiyadooda. walise waxay jecel yihiin Soomaaliya. waa inaynu ku dhiirigelinaa inay dib ugu soo noqdaan, keenaanna xirfadahooda iyo halbuurkooda si aynu Soomaaliya uga wada dhigno waddan qani ah. inta ay taas dhacayso, kuwa doorbida inay sii joogaan dibadaha waa inay helaan caawimaadda dowladooda Soomaaliyeed. tusaale ahaan waa inaynu si xoogan ugu doodnaa una raadinaa xuquuqda iyo nabadgelyada ganacsatadeenna qurbo joogta ah sida kuwa jooga South Africa oo la kulma dilal cunsureednimo. 3, yidadiilo dhaqaale. haddii aanu haysano amni lana dagaalano musuqmaasuqa waxaanu markaa horumarin karnaa beeraheena, wax soo saarka macdanta, xoolaha, kalluumaysiga iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ah. dana kale oo caalami ah ayaa afduubtay kheyraadkeennii dabiiciga ahaa iyadoo ay yar tahay ama iyadoo aanay wax faa'iido ah ugu jirin Soomaalida. markay is helaan shirkado caalami ah oo mugdi badan ku jiro iyo mas'uuliyiin dantooda gaarka ah ka hormariya tan ummadda, waxaa faa'iido oo kaliya shakhsiyaad kooban. waxaan ballan qaadayaa inta aan hoggaanka hayo inaanu ilaalino kheyraadka dabiiciga ah ee Ilaahay nagu manaystay oo aan hormarino danta dadka Soomaaliyeed.
inaan danteena Soomaaliyeed hormarino waxaa ka mid ah inaan waddankeena u furno ganacsiga xaqa ah oo xalaasha ah. waxaan ka dhigaynaa waddankeena mid soo jiita ganacsiga adduunka oo dhan ama ah waddan ay shirkaduhu rabaan inay ka shaqaystaan. sababtoo ah waxaan fududayn doonaa in ganacsi la furan karo. waxaan ilaalin doonaa maalgelinta ha ahaato midda dadkeena iyo mid ajnabiba. waana sida ugu dambeyntii aanu shaqooyin macno leh ugu abuuri karno dadkeena una bedeli karno sumcadda dalkeena. afar, dhalinyarada. jidka aynu u marayno inaan garanno ama gaarno horumar dhaqaale waa inaan shaqo u abuurnaa dhalinyaradeenna. waa inaan soo jiidannaa maalgashiga caalamiga ah ee tooska ah. taasna ma samayn karno annagoo aanan amni haysan. mana samayn karno taas annagoo aanan la dagaalamin musuqmaasuqa. iyo weliba ma ahaan doono waddan xasiloon marka dhalinyarada Soomaaliyeed aysan rajo ka lahayn mustaqbalkooda dhaqaale. waxaan filayaa inay weli xusuustiinu ku jirto shilkii badda ka dhacay dhowaan oo ay dhowr boqol oo dhalinyaro ah oo Soomaali ah ku dhinteen badda. waxay u tahriibeen oo raadinayeen shaqo, nabadgelyo iyo nolol fiican. dowladdeedu waxay samayn doontaa wax walba oo ay awooddo inay shaqooyin ka abuurto dalkeena gudihiisa. haweenka sidaan la wada soconno haweenkeenu waxay qayb libax ka qaateen halgankii aan u galnay gobonimo doonka Soomaaliyeed. waxay ka ahaayeen SYL xubno firfircoon. waxay kaalin laga maarmaan ah ka qaateen abaabulkii axsaabta raadinaysay xornimo doonka. in badan oo ka mid ah waxay halgankaas kala kulmeen ciqaab, xarig iyo dilba leh. inkastoo ay haweenku yihiin laf-dhabarta bulshadeenna, haddana siyaasadda iyo nabadeynta waa lagu xaqiraa. haweenkeenu waa hodantinimo dabiici ah oo Ilaahay nagu manaystay. waxayse noqotay in si aan runka ahayn loo soo hadal qaado waxqabadkooda, halgankooda iyo guulaha ay ka gaareen nolol maalmeedka guriga, baraha shaqada, difaaca bulshada iyo wixii la mid ah. waxaa la joogaa waqtigeenu si dhab ah u aqoonsan lahayn in ummadna aysan guulaysan karin haddii ay xaqirayso bulshada barkeed. sanadkii 2012 waxaan ku dadaalay kalena shaqeeyay hogaamiyaal haween ah in kaalintooda laga siiyo loona qoondeeyo 30% kuraasta baarlamaanka. aniga iyo intii aan madaxda u ahaa waxaanu fududaynay sidii loo dhisi lahaa tayada haweenka golayaasha deegaanka oo tiradoodu dhammayd 250 si ay uga qayb qaataan dib u dhisidda dalkooda. dowladdeedu waxay xaqiijin doontaa inuu jiro jawi ay haweenku si firfircoon uga qayb qaataan siyaasadda oo ah mid u dhiganta tan ragga. ugu dambeyntii, marka Soomaali oo dhan ay ka qayb qaataan siyaasadda iyo dowladnimada, waxaa suurtagelaysa inaynu gaarno isbeddel dhab ah oo la taaban karo. marka horese waxaan rabaa inaan idiin sheego in markaan is-sharaxay kadib soona bandhigay qaar ka mid ah fikradahan idinkala hadlayaad waddanka oo dhanna intii markaas ilaa hadda aan ka gaari karay aan safar ku maray waa damacsanahay markaan halkan ka noqdo inaan inta ii dhiman aan safar ku maro. waxay la soo gudboonaatay su'aal dad badan ay weydiiyeen oo aanan jeclaysan.
waxaa la yidhi maxamedow aragtiyada aad soo bandhigtay waa la dhacnay waxaa kaa muuqatay daacadnimo iyo karti waxaan si ku weydiinaynaa waddankee kaa dambeeya oo ku soo dhisi doono waan wada ognahay dalkeenna burburka ku dhacay laakiin su-aashaas waxay run ahaantii cabir ka bixinaysa kalsooni darrada iyo qalbi jabka dadkeenna ku dhacay inaan si caadi ah oo aan laga xishoonayn aan isku weydiino madaxda dalkeenna xilka u haysa yaa inoo soo xulaya aniga ceeb igala weyn ma jirto waxaan ugu dhiiraday inaan isku soo sharaxo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inaan beeniyo fikirkaas dhiso kalsoonida dadkeena soona celiyo sharaftoodii anigoo og inay jiraan malaayiin Soomaali ah oo rabta inuu yimaado isbedel dhab ah oo reer Minnesota ay ka mid yihiin isbedel doonka waddankooda hooyo ka dhici kara waxaan ku tashanayaa taageeradiina iyo taageerada malaayiin Soomaali ah oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba sida intiina badan ay la socoto shalay waxaa dhintay Allah u naxariistay Maxamed Cali Kalay wuxuu ahaa nin geesi ah wuxuuna isticmaalay oraah uu horay u yiri siyaasigii Jesse Jackson oraahdaas waxay lahayd marka hore Ingiriisan ku sheegaya if my mind can conceive it if my mind can conceive it and my heart can believe it then I can achieve it hadday maskaxdaydu ku dhalan karto qalbigaygana rumaysan karo waan gaari karaa haddii wixii aan idin sheegay caqligiina ay geli karto qalbigiinu uu qaadan karaa aan u wada istaagno inaan ka bedeli karno waddankeena mid lagu yaqaano saboolnimo iyo colaad oo aan u bedelno waddankeena waddankii ugu isbedelka weynaa dunida oo dhan oo ah mid ka soo kabtay burbur noqdayna mid nabad iyo barwaaqo ah si wada jir ah aan ugu helino Soomaaliya si wada jir ah aan u gaarno guusha aan gacanteena ku keeni karno si wada jir ah aan nabadgelyo iyo horumar ugu gaarno heshiis dhab ah iyo dawlad daacad waxaan si toos ah si gaar ah iyo si shakhsi ah idinka codsanayaa gaar ahaan reer Minnesota maxaa yeelay waxaad leedihiin khibrad dimuqraadiyadeed iyo bisayl siyaasadeed oo aad madaxdiina ku doorataan waxaan idinka codsanayaa inaad hormuud ka noqotaan isbedel doonka oo aad tustaan in Soomaaliya aysan iib ahayn inay Soomaalidu la imaan karaan madax u adeegaysa danta dalka iyo dadka ee aan u adeegaynin dano cid kale oo maal gashatay waxaan idinka codsanayaa inaad garab istaagtaan maanta aad iska diiwaan gelisaan website-ka waxaa la yiraahdaa maxamedcabdirasaaq.com aad ku deeqdaan dhaqaale si waddankeenu uga xoroobo xaaladda uu maanta ku sugan yahay waa mahadsantiin
waa mahadsantiin